tani waa sheekada ciyaaryahanka xulka qaranka Soomaaliya Umar Abdullahi Maxamed kaasoo sanadkan mataliyay xulka qaranka Soomaaliya tartankii bariga bartamaha Afrika ee ka dhacay dalka Uganda wuxuu sidoo kale ahaa ciyaaryahankii goolka ka dhaliyay xulka Burundi kaasoo kamid ahaa goolasha ugu quruxda badnaa ee laga dhaliyay tartanka bariga bartamaha Afrika hadaba maxaad ka taqaanaan taariikhda ciyaaryahan Umar Abdullahi Maxamed trying to deliver that ball in faster Safi Mayo with possession. Safi Mayo, Eunice is opening up. Oh, now goes to the legs of Omar! Crocker! Just look at how the stadium goes down. Abdullahi Omar with the beauty of the goal. Somalia leading Burundi by 1-0. And the goal scorer, Omar Abdullahi. What a cracker. Just look at this. And how the goal comes through. Gets the space. One control. Boom! Back of the net. Rukunda Onisime couldn't stop that from going in. That's a strike. Worth celebrating. Now that is the beauty. soo tagnay 2003 marka waxa tagnay Masar dalka Masar Cairo Masar wallahi family la joogay kubada banaanka iska dheelay marka baashaal gaab iska dheelay walaalayaasha dheelay marka Masar ka bacay xasiyaadna Mareykan wallahi marka ay rasifaa mu xasuustay laakiin markasta hooyadii waxay dhigi jirtay Bruni waliga aad u jeclay marka muqdisho marka ay waa dheeli jiray marka Masar jooga dheeli jiray marka hamiga wuxuu ka bilowday yaraanta umalaha koobor marka bilaaway waxa leelay ciyaal oo xaafada saaxiibayaasha oo kooxda waxa la dhahaa TMT marka kooxdaas waxa waa ciyaalka xaafada dhaxdeena suubsanay koobiyaal badan dheelnay koobiyaal badan waa soo raani koobiyaal badan oo nol garay marka waxa ahayd ciyaal oo yar oo kulligiis la soo koreyno iyo waxa jirto ciyaal kale oo saaxiibayaasha hadda cunug oo qaranka u jira Cabdi Maxamed la dhahayo oo asna koox cadaan ah sala galnay wallahi waligeena neestada Umraani ahay hooyadani bixis ilaa Muqdisho magaca iska daba socday marka Umraani la iska wallahi qaf wuxuu iska dhigi jiray laakiin badan aan Umraani la dhahay jeclaa jiray wallahi bilaa marka ay horta ciyaartooyin badan waa taageeri jiray laakiin waligeen misdeen qafkan iska dhig marka iska dheelay waxa la farxad iga ma ana ugu yar marka ay yareen soo koray nik qafku ugu yar marka taqaan marka taa walu kooliya walu forjeha marka walaalayaasha aad iyo aad ay dooreen wallahi horta koox yariisa oo ciyaar marka waxa jiray 3 sano jiro marka kooxda waxa la Blast FC marka Blast FC oo ciyaar anigu 3 sano jiro markaas marka 86 galay koox oo waaweyn oo daacad academy ku jirto MLS-ka waxa la kooxda Columbus Crew Academy kooxdaas marka 86 sano anigu jiro galay kooxda sorto waxay ahayd marka kooxda Blast u dheelay marka 83 sano jiray si fiican soo arkeen markaas koob soo qaaday marka kooxda Columbus Crew Academy galay marka liigaas waa adeeg liiga academy-yaasha MLS-ka dhan waa first division ka oo marka liiga aad u adkaay marmar isreebka tagnay semifinal tagnay la koob qaadna horta naadiga aan la Soomaali ka naadiga si fiican ay dhaqmaan tobaraha koogor chance oo koox professional saxay marka tobaraha aad u madceliya nin oo aad iyo aad waxa waaye oo soo koriyay marka anigu 19 sano jiro oo kooxda u saxay oo professional oo koox kale oo as tobaro FC Cincinnati la dhahayo 2 sano 3 sano soo wareegtay hadda kooxdiisa kale tala joogo Greenville Triangle oo South Carolina ku taal wallahi anigu horta waxa jeclahay malo waxa uu jeclahay malo waxa uu jeclahay malo waxa suqar والله waxaan dhiilay xulka Soomaaliya markasta u dhiilayso waxa waaye waxa aad iyo aad ugu farxo abtiga uu soo dhili jiray marka family-ga dhan marka dhiilayno qaranka dhiilayso oo la soo wacday aad iyo aad ugu faraxsanaayeen marka ilaa intuu caafimaad siihay oo chance ka helay la soo wacday markasta wayna imaad isku dayay wallahi horta maxaa lahay naadiyal badan way jiraan marka Saciid waa ayo kulli farxaan duqo حزازي كوحياش دانو ديلان خورسيتي كوحياش دانو كسا وعلى الصعودة مركا
waa la soo xiriiraa laakiin Soomaaliya marka waxa dhilay horyaalka aad iyo aad u fiican yahay Facebook waa ka daawadaa waa la socdaa marka horyaalka American adiga contract ku jira marka contract ku jirtid koox kale timalo dhili karto ani Premier League waxa ka taageeraa Arsenal La Liga na Real Madrid ka horta taas run wala marka yaraa horta walaalkii ugu weyn Cali la dhaho Arsenal taageeri jiray marka aniga horta marka yaraa Masar degneen Al Jazeera Riyadi waxa soo deey jirtay Real Madrid waaga David Beckham Ronaldo Zidane marka Real Madrid iska taageeray marka waxa riisku soo weynaaday ka bacdi walaalkii Arsenal taageeray Arsenal Bruniga dhasha aad uga helay marka Van Persie aad u jeclaay marka Arsenal iska qabsay Real marka daawahay waxa u dhilayeen Zidane Beckham Ronaldo Galacticos la isku dhijir marka dadkaas laacibiintaas waaweynka marka arkay waa iska jeclaan wala hadillah waa taageeraa Real Madrid maalorata Barcelona eber ku dhamaatay ciyaarta Liga number 1 la isku dagaalo isku dhibco waaye marka waxa waaye Real Madrid koox aad u jeclahay waa ani Arsenal marka daawa Ozil aad u jeclahay qaabka u dhilayo marka Bruno Fernandes mar walba qafka qaabkiisa iska jeclahay Real Madrid waxa jeclahay hadda Hazard joogo Toni Kroos joogo maxalla Vinicius Unigiris Brazilianka marka laacibin badan way joogaan wallahi horta koo goor waxa rabaa inaan Soomaalida shacabka reena mahadsanidaaho aad iyo aad noo taageerteen marka waxaan idilaa aad iyo aad u mahadsantiin si qaasatan reer Kampala si fiican aan soo dhaweyseen marka wallahi marka Uganda u dhaceene garoonkeena ku dhiilin amal nolokeed marka future-kan waxa rabi lahayn insha Allah dib Muqdisho City ku dhiili karno oo marka ku dhiilna shacabka aad noo soo taageeraan oo marka future-ka Soomaalida Brunei ku soo ka insha Allah trying to deliver that ball in faster Safi Mayo with possession Safi Mayo Eunice is opening up oh now goes to the legs of Omar Crocker just look at how the stadium goes down Abdullahi Omar with the beauty of the goal Somalia leading Burundi by 1-0 and the goal scorer Omar Abdullahi what a cracker just look at this now the goal comes through gets the space one control boom back of the net Rukundo Onisime couldn't stop that from going in that's a strike worth celebrating now that is the beauty